بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كسو نغا داوانيسان waxa farxad noo ah maalin jimco ah oo bisha May tahay 20 sanada 2016 inaan ku sugannahay meel loo yaqaan Isha Gobka oo dhowr kiiloomitir dhinaca koonfurka xigta magaalada Hargeysa waa meel ay dadku nasasho u yimaadaan oo barwaaqada ay ka muuqato maadaama uu dhawaan uu roob ku da'ay deegaanadan Somaliland waxa farxad ah inaan halkeed ku soo gudbiyo waraysi xambaarsan waxaan jecelahay in dad badan ay aad uga heli doonaan oo nolosha caruurta khusaysa waxa farxad ah inaan la kulmo oo yacanab guuleed weyn oo loo yaqaan hooyo dhaqan koob magaciisa laga bedelo horta magaca qoladina yaryar bay ugu dhajiyeeyo waayahay sidii loo oran jiray dhaqan koob ayay iga raacday waayahay waa kale dhaqanka in la goobaa la raadiyo way fiican waxa badan oo hooyo dhaqan gooba canab guuleed baad maqli doontaan barnaamijku wuxuu ku saabsan doonaa heesaha caruurta loo qaado qaybaha ka kooban yihiin caruurta muhiimadda ay u leeyihiin iyo hadda xilligan marka lagu joogo dadka Soomaalida halka la marayaan heesaha baahi baana keentay inaanu qabanno waraysigan oo waxaan dareennay hooyooyin badan ay baahi u qabaan balin heesihii duuban la helo oo caruurta ba loo saaro bala hooyooyin badan waqti ma helayaan caruurta u heesaan baan jecel barnaamijkaas ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Xamse Sulubo duubayaan aad iyo aad u mahadsan yahay aniguna waa Cabdishakuur Xaji Maxamed Muuse oo si heer sare idin soo dhaweynaya aan soo dhaweeyo in canab guuleed soo dhaw canab bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay Cabdishakuur Xaji Maxamed heer sare aad baan idinku mahad celinayaa marka insha Allah waxaynu halkan maanta aynu aad marti iiga tihiin inaan waxoogaa heesihii caruurta lagu maaweelin jiray maaweeladii caruurta lagu aamusin jiray mar waa maaweelo marna waa aamusin lagu aamusin jiray maskaxdoodana lagu abaabin jiray inaynu halkan maanta ku duubno meeshan oo aad u qurux badan oo dadkii hore soo timishtay waxa isla meel cilaaba tagaysaan oo sanqad lahayn waa tan caruurtina halkan inooga dhadhawaaqaysa ma sha Allah inaga ma foga marka aad baan waan dhawahay aad baan maxayday adna ku idinku mahad celinayaa waanaynu insha Allah guda gali doonaa wixii hawlaheena su'aasha koobaad aan tabcan ku weydiinay waxa weeyaan heesaha caruurta loo qaado dadku ma kala yaqaanaan marka horta marka hore sharaxaad naga sii maxay yihiin qaybaha ka kooban yihiin si dadku ay inoola jaan qaadaan heesaha caruurta loo qaado noocyo badan bay leeyihiin maaweelada xagga dambe ka soo gasha laakiin heesaha caruurta lagu aamusiyo ama lagu seexiyo ama maskaxdooda lagu ababiyo hooyada iyo ilmuhu isku bartaan way badan yihiin ilmuhu marka heesta lagu aamusinayo ay tahay waxaan anigu u malaynayaa kollayba de hooyooyin badan oo Soomaaliyeed baa jirto gobolada Soomaaliga laga hadlaa wadanka dhulka Soomaaliga laga hadlaa uu balaaran yahay marka aniguna waa xigan aan dhaqankiisa wax ka aqaan oo ah Somaliland ila Djibouti inkastoo Soomaalida dhaqankeeda aqaan haddana de kollay qofku meesha uu ku barbaaro wax in badan wax ka sii yaqaana marka saddex luuqood ayay midha ahaan way isku dhow yihiin ama way isku mid marka laga tago maansa yar oo xagga saylac inooga timi midha xagga saylac inooga yimi markii hore oo dabeetana bulshadeenu ku dhaxay marka maxay ahaydee saddex luuqood weeyaan waxa soo raaca ilmu markuu istaago oo isaguna luuq yar oo gaara leh markuu dhaqaaqo oo luuq gaara leh shanta luuqood baan ilmaha ilaa uu dhaqaaqiisa uu raad baradka ilaa markuu dhasho shanta luuqood baan anigu maanta aan u haya ma sha Allah ha ma sha Allah dabcan noocyada sheegtay waxa laga yaabaa dadka qarinaani kala garanaynba oo aniga laftaydu hooyada marka yaraa way heesirtay laakiin heesaas noocay haayeen haba kama garanayn ninka soo waqti laga soo wareegay markaan waxaan dadka nasiibka wal in hooyadoodu heesta markay yaraayeen
maadaama miyi ku dhashan miyina ku koray waana dareenka gaar ay sameynayaan intaan noocyada iu gelin hadhow toleeyo luuqdoodii iyo waxaan jecelahay caruurta miyi kala jecel yihiin heesaha ها عبد الشكور ويكلا عروت ويكلا تعيش هيسة هرت علمه هيست هو يدي وقاضيس هو يدي كو هرت مركو جوهر يسوي برتا اللوغ ديد إن كستولا إلى ها علمه مركو يريو تدبات شلو هو يدي بدانتي سبرتها حدنا عد كيد نوي يقانا اللوغ ديد أنا وحو كبرتها تدتك كله وهذا إذا حافظة شار كاجا إسلام كله كبر أمبرويس كعلمها إذا وجا جراريسو وحدري بينادي هو يدي هين لكن هو يدي عد كذا مركو مغلو مركا بدي مارك دكتور دقيا ودقي سنة يا وارن كل راحستا إن ويكلا يغانان ولي بعلم هو يدي سدان كوشة جاي عد كذا ويغانا وكوس إحدا وكل راحستا أقونتي سيكورسا مسكحدي كورسا إن حتى وكو هذا غبرتا وهو يدي مركي هوبي هي لاد هاي ها halkaas haabu isaguna maaragtay oo codka kala qaadayo halkaas haabu ka dood dilacsadaan isle marka waa kala yaqaanaan caruurtu waana kala jecel yihiin waxaan ma leeyahay imikayn dadku waxay naga sugayaan in heesihi marka imka madashan ku furaya insha Allah taala in heesihi adigoo luuqdi saari doona si aad hore u sheegtay xitaa deegaankii haddii deegaankii aad u eegaysa lafteedana waan kugu soo dhaweynayaa dadkana waxaan leeyahay ka bogasho wanaagsan aad baad mahadsantahay cabdishakuurow heesaha caruurta lagu aamusiyaa waa saddex luuqood bay leedahay waaniga kule horta in badan waxaynu maqalnaa hebel baa laxan ka sameeyay dumarkeenu waxa hees hawleed jirto dhamiyaga la xameeyay ciiduma la xameeyay luuqda iyaga sameeyay waliba waxa laga yaabaa luuqaha qaar kamid ah xitaa in laga martiyo oo imaka sida abwaaniin badan ay tixraacaan si loo soo cusboonaysiiyo loo soo kor loogu soo qaado aanay u halaabin wixii luuqdii aynu lahaan jirnay marka luuqaha dadkeenu iyaga la xameyn jiray wuxuna ilaa ay luuq yeelato ilaa uu luuq yeesho muu qurux badnaan jiray marka waaniga kule waxay mid baa jirta saylac ka timi oo kolleyba ama baadi doonin afku ay tahay laakiin ololowa bisa ala saydin safar maakan sembir qaaqa taasaan maaragtay jabuuti inta badan yaa laga yaqaanaa oo carabta yani badan ku maqlaa marka inagu waxaynu leenahay mid soo gaagaaban iyo luuq dheer oo tacaay caanka Soomaalidu ku tahay hobalayo mid wata ta kale waxa way hobalayo samaw sarariyo legowa mid wata midna wata bisa saddexdaasi waa halka caruurtu way kala jecel yihiin waxay ugu jecel yihiin taluuqda dheer leh marka ragga iyo habluuna way wala dhaqaaqa waa qaarna waa la kala leeyahay qaarna waa la wada leeyahay marka matalan mansadaas la yiraaho ugu horeysa ee la yiraaho waxaan ugu horeysiinayaa malaha waxaad moodaa hadii jeer ragu horeeyo ragu way horeeyeen ilaahay baa horeysiiyay iyaga noo hormuday iyaga noo baaqa anaguna waa maaragtay raali baanu kaga nahay laakiin halkan waxa inooga muuqata inamada horeeya marka maadaama ragga la horeysiiyay anaguna inamadaan iska horeysiiyo sidaas ay ila tahay marka waxay la oranay
أربو إنان كيجيو وبح أرض أبا وبح نور أيو أربو أبي يا بابا سمو أمي أبتي في عنو أذر وانك سنو أذر وانك سنو أييو هل سمو يا كبدي reer kiyoo way maanta reer aftigiina kamay tagin marka taasi waa taa waxaynu ku xiisiisanaynaa samow isagana haddaynu wiilkiya gabadha isdhex gelinana waa halkeeda haddaynu kala dambaysiinana way isdhex gelin karnaa waayo waxaynu ku xiisiisanaynaa ardo maadaama aynu maxay hayday meel maaragtay marka أرضو يا أرضو يندايا أرضو يعرح ذايدي يا أرضها عنا لقشو يا أرضا عنا لدكتو يا أروس خير لنا قشو يا أرضاينا تايدي هيا أرضايو بذبابيا هيا وغاسيا حمبرتو هيا إفكان لغا نادي هيا الباب كتشانا قشو هيا تاسي واتا waxaynu ku xiisanaynaa samow inagoo luuqdana bedelanayna samow sarariyo legowa sakariya maydhaqowa sadku rabbi keenayowa sadrigay qabajiyowa sareeday dhalatayowa sadku rabbi keenayowa safar bayno maqnaaye hobeya hobey habalayowa safar bayno maqnaaye sadal baan fiilahayaaye sokeeya haynoo yimaado marka martidana lama nici jiro waa tala leeyahay sokeeya socdaale haynoo yimaado maxay hayday aynu xogaa ku baashaalo marka taasina waa taa waxaynu ku xigsiisan doonaa insha Allah gabdhaha inagu wiilashaynu jecel hadaynu Soomaalida nahay marka gabadha waxa la yiri dhiba ay oran jireen gabadhi waa dhiba waayo waa talaadee maxay hayday culimadu ba ina tiri ninka 5 hablood koriya adaabul qabri male marka dhibay gabadha laatay waa dhib inkastoo aan jeclayn hablayna neerayga xun maqashiyo dhibay gabadha laatay waa dhibteedii halaaciyadeeda dhinkii bay dhibayadeeda dhibaad baan doonideeda dhibay gabadha laatay waa dhib baa la odhanay marka maadaama golka fuul tahay ma dhaadheera marka waxaynu insha Allah waxaynu soo qaadanay wiilashii arbow waxaynu soo qaadanay samow waxaynu soo qaadanay warsame waxaynu hay'ad imka warsamaynu qaadanayna hobe ya hobala yo hawa hobala yo hawa wayno hawa warsame wayno hawa wardan bayno maqnahaye warsami hayno hoyimahado
سامي هينو يما هادو هوبي هوبي هيا محاد ويدود وهالان محاد ويدود وهالان تاسي لو إنك هي أنت وكذا حيسا محادنا يوريهرين محادنا وحيسو يلي هوبي هوبي هيا هوبالا يو هوا warsamahaasaynu ku noqonaynaa warsame waydaho wagdahale wardohon bayno maqnahaye warsame hayno imahado hawain hawala lobin hoya hawain wardere habo hawain waxsiiso hooyo hawain labada waalid hawain walaala dhowra hawain wixii wax kuwa markaa ilmuhu maskaxdiisa way korisaa waanu ku seexdaa oo siduu u dhageysanayo oo inta uu sii gaabinayo wuu ku gamaa ama hooyada dhabarkeeda ha saaraado ama maxay hayde dhabtaba ha ku hayso ama meelan ka fogeyn boo iyadoo hawl haysa meelan ka fogeyn ha jiifee wuu ku gamaa marka ilmaha marka wax la siiyo ee la dhergiyo haddii uu horu gami waayo maxay heestaasaa lagu seexinayo ay ku gamay marka taasi waa taa kolley waxaad moodaa miisaanka culusi inuu saaran yahay wiilasha way Soomaalidu wiilka way jecesha meelana joogina ala waxna joojin bay islaam oran jireeno anaguna waanu leena waan ku darayna meelana joogin de kolley cabsi baa jirta marka tamaansadani labada qolaba way ka dhaxaysaa maansadan waxa weeye waxa la yiraahaa hobey hobalayowa hobeya miyaad gaajotay gacalo magmayaad gaajotay gacalo manaaskiiba gabnoobay gabnoobood godolka weyday mageeliba arooro olol ku ragay hobeya hobey hobalayowa waa taas oo iyagu miyaad gaajotay gacalo iyo miyaad gaajotay gacalle kolba ilmuhu waa siduu yahay oo maxay heeday labada dhinacba waa loo bedeli karayaa insha Allah marka gobey waxaynu qaadanaynaa imaka inantii hobeya gobeya gardaranay gobimo hoydo garteeday sheegatahaye ragbaha garteeday sheegatahaye gayaan balo xishahay inantii iyadoo yar oo dhabarka lagu sido ayaa la leeyahay rag halkan fadhiyaaba ku doonayo rabaa inay geel ka bixiyaane deeyaanay oo hintaada maqlay hadhow dhan doona war mid kulul bayd markii la sidaybe inaga daaya marka gobeya gardaranay gobimo hoydo
garteeda sheegatahaye gobba laga guursadahaye kayahanba loo xishahaye rag baa goyaha fadhiyaye adahay gelka wadahane gudohomba ku dhacahaye kacarayga gabsagoha waxaan u malinayaa inaad aad iyo aad uga bogateen luuqda iyo weliba midhaha ay xambaarsanaayeen canabna ilaahay cimriga u siyaadiyo runtii wax fiican bay nala wadaagtay waxaan jecel inaan ugu noqdo aan idhaahdo canab ma intaasay ku koobnayn mise wax kale ayaa dhimanoo inta badan waxaa muuqatay heesahaad qaaday waa heesii ilmuhu markuu yaraaya aadka u yaraaya marka ma waxbaa dhiman mise weli waxbaad noo haysaa baan jecel inaan weydiiyo maxay ahaydee way horta cabdishakuurow mana dhammaanayso laakiin waqtigaynu haysano baynu ku xisaabtamaynaa marka waqtigeenu haatan weyna eryaya waana goor gaaban marka waxaan mid yaruma kusoo gabagabaynaya marka dhamo hobeya hobey hobalayo howa dhamo howa kasoo dhumoy dhurwaaga dharaarti buuciyahaye dhallahan buu doonayahaye wuxuu dhunyaadu rabahaye dhabaarkan kugu xambaaro dhabtaheeday nabadi tahale dhabaarkan kugu xambaaro dhabtaheeday nabadi tahale dhammow dhowrtiyo dhurwaaga ana dhabiga u qorahaye ana dhabananin doone dhammo wadnaha u dhawaaqin qaylada inaga yareebay marka ayuu bahalku ina maqline aniga dhabtiyo dhabarka kugu ilaalinaya bahalka inaga celinaye tii adiguna waynaan ooyin iyo aamus marka halkaasaynu maaragtay ilmuhu markii intii uu lagu seexinayuu yaraa halkaasaynu kaga imanaynaa marka waxaa jirta ilmuhu markuu istaago waxaa la yidhaahaa gacalku arag wuxuu gurgurto kolba israha kacba markuu sidaa isu taago gacalku arag inantana waxaa la gayaanku arag balaag hadda inta isu jiraan marka gayaanku arag iyo gacalku arag marka waxaa jirta waxaan kolayba anigu maqli jiray gacalku arag yay goolale gacalku arag waa goolale gacalku arag gaangaambiyo gurigeena iyo goonyaha ku meer gacalku arag gaangaambiyay ama gaangaambiyo gurigeena iyo goonyaha ku meer geedi gacalku arag yay guntiga xidho gacalku arag yay garayska xidho maxay ahaydee waa wiilkiiyo gabadhi baa la isgarab wadaa anigu meelun baan wada marinaya imaka waayo dee waqti aynu labada ku kala qaybino ma hayno gacalku arag yay guntiga xidho gacalku arag yay garayska xidho gooyadana hiisoo dabaal gacalku geediga xigana hoya geela raac waa inankii geediga xigana hoya geela raac geediga xigana gaawaha u culo geediga xigana orod sahanka goob geediga xigana orod sahanka goob geediga xigana guudleyda dumar gabadh geeyo oo gaariya ka xulo geediga xigana gabadhna eegu culo geediga xigana guulahan barye adigoo garweyn hoya talaadago gabadhiina halkaas iyaduna
gacaalku waragay gaara iska xidho adagu waxa la odhanayay adigoo garays loo good ka daban hawshayda gudo aan kugu gam'e awbaala hoobey hoobalow hawshayda gudo aan kugu gam'e geediga xigana gayankaaga badan geediga xigana gayankaaga badan wiilgeesi wiilah iyo wiil gooba ka xulo waa markaa waa halkaasay hooyadu maaragta waaba ilaa dhaqaa ilaa reer yeelanaysay halkaasaa sheekada la marinayay haa waxaa ku inoogu xigtay maansadii la odhan jiray daadahay dabadda baro markaa dadku inta badan waxa laga yaqaanaa daadahay dabadda baro oo ilmaha caruurta yaryar baa had iyo jeer la yidhaahaa daadaheeyo yuu ku fidhe ilmaha daadaheeya daadahay dabadda baro iyaduna luuqdeedu taasay ahayd markaa daadahay dabadda baro daadahay dabadda baro dumarka dhaafo duleedka gaadh dunyadana iisoo dabaal adigoo daroon aan ku daawade iisoo durduri gabadhana waxaa la odhanayay adigoo daroon aan ku daawade hooyo soo deke waaba iyada soo xaragood baa la leeyahay wiilkan waxaa leeyahay adigoo ordaya halkaa ka soo carraa kugu game marka reerka dayacan hooyo soo dude halkaasaa la marinayay marka dahaboy hablaha hooyo door u noqo bay odhanaysay hooyadu dahaboy hablaha hooyo door u noqo aan ku diirsade hooyo door u noqo inankana waxaa la odhanayay deqsi wiilaho dadku raadsha noqo dayinkan barye deqsi wiilaho dadku raadsha noqo marka halkaasay maaragtay ilmaha sidaasaa lagu soo dhaqaajinayay dee marka dambena sheeka caruureed iyo dee waxaasaa loo gelay marka alxamdulilah waxbaynu lahayn laakiin waxaad moodaa wixii inuu halkii uu ka soo burqan jiray uu ka soo daba dhow qaawan yahay baad moodaa imakoo dee hablaha miyiga jooga haddaad tidhaha maxaad ilmaha uga heesi wada waxay koranaya maxaa laga heesaya ilmuhu maxaa laga wareerinaya ilmuhuna ilmaha loo heesaana dadka kale uu ka maskax korana waayahay aad iyo aad waad mahadsan tahay Canab Guuleed wan weyn si fiican oo xaragal oo qiimo badan baad runtii luuq iyo midhaba nooga dhirgisay hal su'aal baan u noqonayaa oo ah hooyooyinka hadda jooga طبعا intee in leeg bay mas'uuliyad iska saareen carruurta u heesaan mise cid waqti uma heshaba inta ogaalkaaga ah mise ma aragtay bariyahan cid hooyo oo carruurta u heesaysa bal arintaas inaad iyadana sharaxaad yar ka bixisaan jecelahay horta Cabdishakuur Xaaji Maxamed heer sare magaca sida taabac jiiba way jiraan hooyo ubadka u heesaa way jirtaa imaka laakiin ma badna waayo waxaad moodaa dadku waxay leeyihiin waa la ilbaxnimadana waxaynaan kaloo inaan garanayn bay nagu soo kordhis waxaad moodaa xidhiidhkii in badan waalidkii iyo ilmaha ka dhaxeeyay in wax si yar kala durkayaano hooyadaasi reerkeeda iyo ilmaheeda bay mashquul ku ahaanaysay inta ugu badan oo culayska saaraysay marka way jiraan waanaan arkay laakiin ma badna waliba dhalinyarta imaka aanu doonayno inaan wax dhacsiino waxaad moodaa inay ka yar faanayaan walaal maxaa la iska daalinayaa waxa la iska daalinayaa ilmahan baa la barbaarinayaa oo wax la baraya marka way jiraan laakiin ma badna waxa laga yaabaa in fursad ku helaan inay ku daawadaan hooyooyin badan oo qurbaha ku nool markay dalka kaba tagnaba oo iyagu ama ay dani ku kaliftay inay haleeli waayaan ama ay fursad ugu waayeen in carruurta saasoo kale ugu heesaan hooyooyinka noocaas oo kale maxaa la wadaagi lahayd iyaga maxaad ku oran lahayd maxay sameeyaa yani sideen heesahaas oo kale haduu baahdaan imka inay dabagal ku sameeyaan maxaad kula talin lahayd oo oran lahayd hooyada qurbaha joogta horta waxaan oran lahaa ta qurbaha joogta iyo tan imaka halkan joogta farq badan uma dhaxeeyaan usaan yar dareemayo hooyada qurbaha joogta hooyadii halkan ka tagtay
iyadu dhaqankeedii way haysataa laakiin inanta ku dhalatay magaalo ama qurba ku dhalatay ee iyaduna ku dhashay iyadaaba hawl badan horta af Soomaaliguna waa ku yari hadii aanay aqooninba haday taqaanaba marka waxa kaliya ee iyada wax loogu tabin karaa ama lagu gaarsiin karaa horta waxani waa dhaqankeeni waa dhaqaaqii ilmaha waxa kaliya horta wax dadka lagu dhacsiin karo ee dadka wax lagu gaarsiin karaa waxa weeyaan qoraalka waqtigii geeraarka iyo hadalku waxaad moodaa inaan imaka xiisa badan loo haynin inkastoo waxaad dhageysato iyo waxaad aragto eed aragto wax walba horta way kaaga saameyn badan yihiin laakiin waxa qorista anigu waxaan jeclaan lahaa in lagu daro manhajyada waxbarashada dhaqankeeni barbaarintii caruurta heesaheeni caruurta hees hawleedadeena oo aynu dad hodana baynu hayne aynaan dad caydhaho intaynu maxay meel qabtay caydho soo daba go'an noqonin oo aynu dad caruurteena barno inaynu wax lahayn wax naga dambeeyaan marka gabadha qurbaha joogta waxaan anigu oran lahaa ilmaha maskaxdiisa way korisaa ilmuhu amuumu noqdaa marka loo heesi waayo qofkaas waa amuumi hadeer waxaan kaaga sheekeynay qoyska jeeska caruurtiisu inaanay aqoon badan lahayn laakiin garangarta wada taala caruurtooda wax badan kala faa'iideystaan marka ilmuhu amuumu noqdo qof aamusan oo yar ma aragtay kalsooni la ayuu noqdaa imaka waxaad u fiirsato hadaad u fiirsato ilmaha caruur badan la dhashay ee kolba mid ka sii qosliyo sii kilinkilay siduu qoslayo ayuu beerfaraqooba ka kalena waxa la yidhi markuu ooyo iska aamusi doono hala hadlin maya ma ahayn la yidhaaho ilmihii waa in horta waxbay daawadsiiyaan waxa la daawadsiiyo ilmuhu ku mashquula laakiin tiyo hooyadii ay xiriir wanaagsan yeeshaan oo ay isbartaan oo ay u heesto oo uu codkeeda barto oo uu ku farxo halka markay ka soo gasho uu ka hor yimaado ayaa fiican waanu ku hadaaq bartaa xitaa isagoo da isagoo hayo doonaya waxa hooyadii leedo kale inuu yidhaaho ayuu ku gamaa marka gabadhaas dibadda joogta horta qoraal wax lagu gaarsiin karaa iyadoo dadaal muujiso dadaasha waxaan u malnayaa inaynu gabagabadii soo gaadhnay iyo inkastoo jeclaa in barnaamijyo badan laga qabto Canab Guuleed laakiin waxaan ugu talagalay inuu noqdo waraysi gaagixina oo dad badan ay ku kaliftaba iyagu bal inay wax sii raadiyaan intaan fursad u heli karaynay Canabna aan uga mahad celinayno Canab Guuleed inay intaan naga yeesho su'aasha ugu dambaysan jecelahay in dadka la wadaagtaa waxay tahay adiga laftaadu maadaama sida u hayso kow horta wax ma qortay oo hadii ay doonaan ma ka heli karaan laba adiga laftaadu isku daysa dadka inaad barto waxan ma laga yaabo mararka qalimka iskuulaa jiro oo goobo dadka ku kulmaan baa jiro oo dadku wax loogu kordhiyo bal qorshayaashaadan jecel lahay maadaama hooyo dhaqan goob magacaad lagu bixiyo magac lagu gartay weeyaan saadii sheegtay Canab Guuleed ma laga yaabo dadkii inaad wax u qorshaysay oo lagu imanaya in adiga wax laga barto aad baad santa Cabdishakuur heer sare waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waana waxyaabaha had iyo jeer aan jecelahay inaan dadka gaarsiiyo waxaan doonayaa in dadka gaarsiiyo horta ay weydiisay marka horta waa maan qorqorin waxba oo meel wax kuma qorin laakiin insha Allah waan rajaynayaa inkastoo imka dad badan ay dhaqankii la daba qabto ay dad badan ay xusul dub ugu jiraan haddana aniga qudhaydu waan tabaniyaa inaan wax qoro hadii la yiraahdo waxaas anigu aan hayo de yoomina la yaan bari bay wadku kugu iman karaa marka cidii wax baranaysana horta macallinku markuu helo arday wax baranayso dadaalaysa oo niyad u haysa ayuu isaguna casharadiisa daraariya oo uu niyad u helo oo gartaa dadkan wax doonaya inay bartaan inuu wax tuso wax baro meel gaarsiiyo waxaan aad u dareemay oo ogahay marka dhalinyaro fara badan oo la tilin kareynin meeshay doonaan ha joogaane inay jecel yihiin dhaqankoodii inay bartaan inay wax badan oo aanay ogeyn ay maxay hayday ay kolba ku soo baxayaan
markaa aad baan u jecelahay inaan dhalinyarada ciddii doonaysa inaan wixii ay u baahan yihiin ay i weydiinayaan inaan maaragtay aan baro inaan u sheego si hagar la'aana way hooyaanahay carruurtan waa waxaan waxbarayaana waa carruurtaydii carruurtana hooyo iyo aabbaa waxbara ka sokow macallinku waa ka guriga maalin maalmaha ka mid ah gabdho badan oo meel sugu yimid waxaan weydiiyey tumaa garanaysa dhidhiibsigu waa sidaan u fadhiyo imika sidaan u fadhiyo inay inantu si mastuuran oo urursan u fadhiisato fadhiga noocyo badan buu leeyahay markaa waa saan u fadhiyo markaa tumaa garanaysa dhidhiibso inan baa farta taagtay malaha waxay haayeen ugu yaraan hablahaasi 25 kama yarayn si wanaagsan way u fadhiisan hablaheenu edeb iyo sharaf ilaahay baa siiyay raxmaanka laakiin waa inay barato dhidhiibso waa maxay markaa aad baan u jeclay inaan carruurta wax u sheego inkastoon hooyadee ahay dee reerka mas-uulada maxay ahayd iska hawlo badan haddana ciddii ii baahan kii qofka gurigayga igu imanayay kii meel kale maxay ahayd aan ku kulmaynaba iyo kii jaamacadaha loogu tagayo diyaar baanu ahay wixii aan anigu hayo anigu anoo yar baan horta miyii ka tegay laakiin markii aan yaraaba malaha maxay ahayd waxaan ahaa dadka active-ka wixii ay arkaanba qabta markaa waxoogaagii aan markii aan yara madaxa ku sii xambaaray baan imika dadka uga faa'iideynayay aniga qudhaydu miyiga xitaa kuma 15 jirsan waan ka yaraa markaa ilaa 12 jir baa 12 jir adigu meelahaasaan miyiga kaga tagay markaa haddana wixii dhaqankii waan dee wixii oo dhan waan garanayaa hooyadu iyo sidee u dhaqmaysay iyo sidee wax ahaayeen iyo wax kasta waan garanayaa markaa guryaheennana anigu ciyaar guryaheennana maxay waalidahoodan oo rag iyo dumar bale baa jooga ayeeyooyinka halala sheekaysto awowyada halala sheekaysto maxay ahayd hooyooyinka iyo aabbayaasha waxa la weydiiyo carruurta waxa la weydiiyo waxaan leeyahay waalidka waxa la weydiiyo ilmo kasta gurigoodu ka helaya wuxuu doonayo kii gurigooda maxay ahayd cid reer magaalo dhashayna awowyadii buu ka soo helaya markaa lama waayo dhaqankeeni uu buuxaa dadkuna wixii aynu dhaqan lahayn way hayaan markaa waxaan leeyahay iyagu maxay arday fiican dadkii carruurta hadday noqdaan ardayga fiican isagaa wax barta waa hagaag daawadayaal farxad iyo sharaf bay noo tahay inaanu intaa kusoo gabagabino waraysiga aan la lahaa Canab Guuleed laakiin in yar baan qarsaday oo aan jecelahay inaan idinkaga tago oo gunaana ka noqon doonta Canab Guuleed Maxamed Canab Guuleed weyn waa hooyo ku nool magaalada Hargeysa sida idin sheegtay waa dadka imika u heelan in dardargeliyaan dhaqanka farxad bay tahay malaha dhowr jeer hore inaan la kulmay haddana imika aan la kulmo mar kale aniga lafteeda waa dad macallimiinteeda dhaqanka aan aad ugu xidhanahay muuqaalka waxa duubayay Xamse Sulub waraysigana waxa la socodsiinay ugu Cabshukuur Xaaji Maxamed Muuse ah gunaanadka waxaan jecelahay Canab Guuleed maxay dadka kaga tagaysaa inaan ku soo xidho barnaamijka kulan dambe insha Allah taala intaan wax kala kulmi doono fi amaan illah laakiin Canab Guuleed baa barnaamijka xiritaanka yeelanaysa iyadana hadiyad xiritaan ay noo haysa hobeya hobalayo howa samow sarareyo lego howa sadrigay qabojiyo howa saraday dhalatayo howa sadku rabbi kerayo howa safar bayno maqnahaye sadahal ban filanayahaye sokayahayno yimaado